waxaan ognahay cafisku inuu yahay shay u muhiim ah aadmiga. qisadan maanta idin haya way ka duwan tahay qisooyinka kale. waa nin furay gabadhiisii muddo sannado kadib wuxuu yimid stuudiyahan si uu u soo ceshto xaaskiisii hore. bal aan eegno inuu arrinkan ku guulaysto. iminkana waxaan u yeedhi doonnaa aan halkan ugu yeedhi doonnaa cismad maxamuud ismaaciil. bal soo dhoweeya idinkuna. cismad soo dhowow ku soo dhow weliba barnaamijka musaamax kariim. wandhowahay mudane George. hay ii waran maasha allah kol waxaan arkayaa madaxaaguna waa cad yahay. aad baan u dhawahay mudane George. 7 sano ayaa ka soo wareegtay nawaaxis. 7 sano kadib ood kala maqan tihiin waxaad doonaysaa imika inaad isku soo noqotaan. wallaahi sidaan ugu joogaba garan maayo. iyaduna dee waxay haysaa 5 carruura. markaa sidaa awgeed baan u imi inaan xaaskaygii aan soo ceshado. halkay ku nool yihiin markaa? wallaahi haddii aan kuu sheego carruurtaydu way badan yihiin. 2 ka mid waxay la joogaan hooyadood, inta kalena anigay la joogaan. marmarka qaarkood hooyadood bay u tagaan ubadku, marmarna anay imaadaan la joogaan. aan wax yar idiga taabto arrintan cismad wuxuu qabi jiray gabadh la yidhaahdo nawaaxis. sidaad u maqasheenba waxay isku dhaleen 5 ubada. walaalkeen cismad wuxuu xidhiidh hoos ahaan la lahaa gabadh kale. nawaaxis waxay ogaatay xidhiidhka ka dhexeeya isagii gabadha, waxna way ka weydiisay. kadib waxaa dhacday haye horta iyada waxaan isqabnay 25 sano. markaas ayaan aniguna dabcay inaan gabadh kale guursado. iyaduna markay ogaatay in gabadh kale xidhiidh naga dhexeeyo, kadib markay maqashay arrintaa waa dumaro dee aad bay uga xanaaqday. isagu ballan ayuu qaaday, gabadha kula guursanayo ayuu ballan ugu qaaday inuu guursado. xaaskiisina nawaaxis ahayd wuu sheegay inuu kadib markaa waxay igu tiri kala dooro aniga iyo gabadhaad leedahay waxaan guursanaya. arrinkan uu raali kamiyey wuu furay haweenadiisii nawaaxis wuxuu guursaday gabadhii kale. gabadhaas magaceed muxuu ahaanaa miyadii waa cayda wuu guursaday cayda markaa. laakiin cayda ubadkiisii baa la dhaqantay hab cayda ubadka si fiican ulamay dhaqmi jirin. marmarka qaarkood way dishaa, way maagtaa. adigu waxayd qof aan ubadka u roonayn. markaa khilaaf ka yimi halkaas, kadibna arrinkayga weji kale u yeeshay. midku weydiiye ad warta maxaad ka shaqaysaa marka hore? anigu shaqadaydu waxa weeye laxaamadda. haye maxaad ku odhanaysaa markaa gabadha ubadka kugu dhashay? anigu halkan waxaan u imi dadka hortooda inaan ka caddeeyo oon weliba rajaynayaa inay ii soo laabato xaaskaygii oo aan ku raalli geliyo dadkan hortooda. adugu yacni waxbaad ka og tahay in la guursaday iyo in kaleba? may ma weydiisay iyada markaa? ma fududa. waa awlaaddeeda hooyadood. markaa waxaan ka dalbanayaa inay cafiso. weliba waxaan doonayaa dadka hortooda ayaan ku raalli gelinaya. waad ku odhan doontaa waxaad u hayso adaana qancin doonaa. waa awlaaddeeda hooyadood. anuun ku caawinayaa bal xaalkay ku sugan tahay. si kastee haataba waan u diray anugu fariintii. bal aan wada aragno siday u gaadhay fariintu. أهلا وسهلا سو دhow marwe nawaaxisay. wandhowahay iga waran axwaashaada su-aadiyaad ma fiican codkana kor u qaado. iga waran amuurahaagoo dhan iyo xaalku siduu kugu yahayba iyo dhammaanba. xaaladaydu alxamdulilah aad baan wax kastaba ilaahay ku wanaajiyo ku fiican yihiin soo maaha? aamiin maasha allah dhammaan waan iska wada nabad qabnaa. niqaamka mar kasta miyaad xidhataa? mar kasta muddo intee leeg ayaad xijaabaneed kaloo ku arkaya marwe asturan baad tahay? adigu weligeyba waan iska asturnaan jiray, xijaabka waan iska xidhan jiray, laakiinse niqaabka iminka muddo 10 sano ayaan wataa. marwe ilaahay ha ku barakeeyo, iimaankana allah ha kuu sugo. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso waxaan halkan kuugu yeedhay. way wallaahi ma garan karo. anigu khayr un baan ku wadaa. barnaamijkanna waxaa la yidhahdaa musaamax kariim. anigu waxaanay addoon khayr faafinaya. qof baa jira aan anagu matalno balse laakiin isagu ku doonayo. iga dalbaday aniga inaan adiga kuu yeedho. oo anigaa kuu yeedhay waana timid waanad ku mahadsan tahay imaanshaha aad ii timid. 100 jeerna waan kaaga mahad celinayaa.
ma jecesha inaad ogaato qofka ku jecela inaan yeedhay ogaado qofka ii yeedhay wadnuhuna aad bii qaraacayaan maya istaji wadnahaguna waa degi doonaa hadda baleeg shaashadda dhanka midig bay kaa xigtaa miyaaradda eeg allah ilaahay kaa saamaxo waxaad igu samaysay istaji wiilkan dhallinyarada maad garateena muddo badan ayaa kugu dambaysay intaanad arag soo maha 7 sano ka hor baa igu dambaysay 7 sano timihiisa masaasay u caddaayeenna aad umay caddeen cismad marwana waa xisay waa cismadkani cismad fariin ayuu kuu soo qoray anaana ku akhrinaya balan maqalna wuxuu leeyahay cismad cismad marwana waa xisay wuxuu kuu soo qoray hadallo yaroo ka kooban oo dareen leh wuxuu yidhi sida tan xaaskaygiyey noloshaydiyey ubadkayga hooyadooday nawaaxisay dunida 10 bay bartay anna waxbaan ku qaatay waxay bartay dunidu inaan ogaado qiimahaaga waxa kaloo ay bartay wanaagaagu inta uu leegyahay waxaad ila qaybsatay dhib iyo dheef 25 sano ayaa id samraysay waxaan ahaa qof nabad ku seexda nabadna ku soo kaca agtaada markaan joogay xaas wanaagsanna waad ii ahayd waxaanad ahayd ammaanada nolosheeda iyo ubadkaygaba shaydaan ayaa iga aqli badiyey nawaaxisay igana dhigay inaan kugu gafa adiga itusayna dhalal adduun naag kale micnaha xaqiiqdii qof adiga kula mid ah dunida ma joogo noloshaydii fiicnaan lahayda inaan adiga ka agdheeraan oo noloshayda inta ka dhiman agtaada ku dhammaysto inaan dib kuugu soo noqdo nasiib ayay ii tahay adigoo qiime iyo qaayabo leh inaan kaa fogaado ma ahayn aniguna adiga la'aantaa ma noolaan karayo 7 sano baan kaa fogaa aad bay igu badan tahay laakiin weli nolol badan bay noo harsan haddii ilaahay nagu simo ballan baan ku qaadayaa madaxayga korkiisa inaan ku saaro waan khaldamay xaaskaygii waxaan kugu raali gelinayaa afisna kaaga weydiisanay dhammaan dadkaas oo dhan anigu aad baan kuugu baahanahay adiga carruurtuna ka daalik guriga adiga la'aanta waa mugdi weligaana iftiinka guriga adigunba ahaa anigu maantase waxaan u yimid halkan inaan cafisku weydiisto ma khaldamo waa ilaahay waanan kugu khaldamay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaa baryaa inaad cafiso walmusaamax kariim noloshayda qaaliga aheeday cismad ka waran say kula tahay nolosha intii ugu badnayd waa soo qaata yaad la soo qaadatay ma isaga haa isaga sidaasay tay wuxuu isoo mariyay dayac badan iyo dhibaato ma intaanu naagtaa baran baa mise waa markii uu guursaday maya waa markuu naagtayga raacay markuu naagta kaa raacay haa isbaan lahayn cid buu kaa raacaya maalintu naagtayga raacay ayaa noloshaba nacay marwaana waa xisay wax kastoo dhacay haatan cismad maanta waa kula joogaa wuxuuna yimid barnaamijkan wuxuuna soo go'aansaday inuu dib u soo celiyo qoyskiisii xaalkuna siduu ahaa waxaan doonayaa sukorta hadduu yaro sog naagtii hore fur waa goorma
waa goorba marka ubadkayga gurigiisi lagu soo silciyey aniguna aan gaarkayga u dhibaatooday carruurtayda oo gurigiisa jooga ayay gabadhiisu dhibaataysay weliba isagoo guriga jooga hablahayga 3 habeenimo ayaa guriga laga soo saaray xitaa ubadkayga wax ku jirtay inan yar oo 4 jir ilaa 3 jir u dhaxaysa markay dayacantay dhaxan bay kaga dhacday isaguna wuxuu kaga tegay ubadkayga xaaskiisa oo xataa kuwa waaweyn gacan u qaadisay waxa dhacday maalin maalmaha ka mid ah aniga oo shaqadayda jooga anigu waxaan ka shaqayn jiray isbitaal telefoon ayaa layga soo wacay saldhigga bacdeen waxa laygu yiri gabadh aad dhashay baan haynaa oo waa mise jir markaa 4 jir ayay ahayd walaahi aniga arrinkaas ay ku dhacay xataa isagu telefoon igama soo sheegay haa laakiin isagu khaladkiisa dhan waa qirtay hadda in isku kaadhiyo ayuu halkan u yimid xitaa inantayda weyn banaanka ayaa loo saaray isagu miyaanu ka cabsanayn inantaydu inay dayacanto oo xataa tuugtu ay disho ama meelaha lagu faraxumeeyo la kaxaysto ilan waa inane gabadhayda banaanka ayay ku dayacantay xitaa aniga ayaa raadiyey habeen madow ayaan raadinayay markii dambe waxaan arkay gabadhayda bannaan jiifta baryaheeduna ay jeexjeexan yihiin iyadana dhib badan iyo duruufi ka muuqato timahana la jiiday inantii yareed markaa weydiiyeen kuudhi hooyo maxaasaan kuu galay waxay gu tiri hooyo mar dambe u tegi maayo naagta aabbahay qabo markii dambe guriguu igaga dabaymi wuxuu igu idhi keen inantayda waan kaxaynayaa waa rabadaana waa iido anay la soo iidisaa wax kale iska daayay markii gurigii ku noqotay inantii yareed ilkaha laga soo daadiyey xaaskiisuna waxay igu jawaabtay ubadkaa isdilaya iyagaa ilkaha iska quba inantaydu sababtooday uga baxday iskuulka markay aragto ciyaal yararoo iskuulka dhiganaya inantaydu way oydaa waxay ku tiraahdaa hooyo kaalayga kaxay gurigan ma joogaye dhib aad badanba soo gaadhay ubadkayga xataa ina aan anigu dhalay laydhba ku dhegay ubadkayga layma ilaalin jirin laymana daryeeli jirin xataa wax kale iska daayo ubadkayga dhibaataday soo mareen habeenkii qaar ban aad u seexanin ma ninkaasaad igu leeda ku noqo ma ninkaasaad maanta i leeda ku noqo ma dulmi kalaad ila rabtaa wallaahi waan ka xunnahay anagu dooni mayno kulamana rabno inaad dulmi ku noolaato dhammaantayna waan dareensannahay inaad dhaawacan tahay ad weliba aad ooyeysay annagu waan jecelnahay inaan labadiina dhanba aan dhegaysanno adigana waan ku dhegaysanay bal isaga aan yaro dhegaysanno wax yar ilmaduba miyay iga joogsataa markaan soo xasuusto dhibkaan soo maray anigu gabadh ayaa dhahay ubadkayga waanu soo dadaalay maxaan sameeyaa hadday dhibtii iga badatay bini aadan miyaanan ahayn wax walba isagaa ii geystay dhibaato walba isagaan u maray isaga xoogaa yara hadle war cismadow waad maqashay waxay ku hadashay gabadhu anaguna waan la soconnaa adiguna wax kasta waad noo caddaysay inaad tahay nin liita oo gabadhi ku maamusho ubadkaaga inaad dayacday heer ay gaadhaan ubadkaagii ilmihii weliba 4 jirkaa intuu lugeeyo inuu lumo inta islahayd hooyada u tag weliba dhiiggaagii dheecaankaagii weliba inana annaguna dhammaantayaba arrinkan waan ka xumaanay waxaad ku oran karto bal ku dheh iyo wax qalbigeeda qawajiya carruurtayda hooyadood lagu maqli maayo codka kor u qaad axmed hooyadii way maqlaysaa intaasi miyaanay nagu filnayn 7 sannadood ayaynu kala dheerayn 7 sannadood noloshayda waxyaabo aad u badan ayaan waayey taa waan ogsoonahay laakiin wax kasta waa nasiib maxaad saa noogu gashay anigaiyo ubadkaagaba aad noo daryeeli iska aamu shayddaan baa iga dambadiyey aniguna waxaan nooday nin nacasa mar adigan khalad kaa galay marna ubadkaygii baan khalad ka galay naftaydii baan xitaa khalad ka galay axmeday yaan khaldamin qof aan khaldamin ma jiro annagu bashar baan nahay dhammaanteen baan wada khaldamaynaa laakiin daa isagu bal hortaa ku yar sheekeeye adoon wixii hore ku soo hadal qaaday maalmo badan oo qurux badanba adigan kula soo qaatay wixii dhacayna waan ka xumahay innaguna si fiican baan isu naqaanaa iyo qalbiyadeennuba noloshii aan soo wada qaadanayna inagu filan 20 sanaad soo wada qaateen cumrigiinii bestee haddaba ilaahayna waa qafuuru raxiime qof walbana wuu khaldamaa aniguna waan khaldamay aadna waan kaaga raaligelinaya miyaanay dhici karin inaad i cafido umu axmed ii jawaab
istaji shayddaanka iska naar waxba ha ooyin noloshii oo dhammi waynoo harsan tahay u sheeg adigu waxaad u timid marka hore halkan u sheeg waxaad u timid weli wakhti baanu haysannaa ubadkeennu wuxuu u baahan yahay weli inaynu dhabta ku hayno oo aynu ilaalino adigu inantaada nolosheeda waad baabii gaadhay habeen madow markay nolosheedii dhammayd ayaa dariiqa khatar ku anigu maan ogeyn markay soo baxday ilaahay baa inoo badbaadiyey iminkana carruurteeda waxbarashada ka hadhayna dib bay nolosheena u dhisan doonnaa wakhti badan baa inoo hadhay wixii tegey haddaynu ka hadalno dib u soo noqon maayaan 7 sannana wayna soo naagtaasi waxay ilmaha ku samaynaysay warba umaan hayn waayo inta badan shaqadan ku maqan anigu oo waayo carruurta adigu maad maya anigu ma joogin waayo anigu si wixii shaqadan ku kal lahaa xilli dambana waan imaadaa waxa weeyaan ubadkaagii haddii aad aniga iga qaadatay waad og tahay maalintii oo dhan anigu waxaan joogaa geerashkuna meel carruur la geyn kara ma aha waxna kamaan ogeyn waxa ay gabadhu ku samaynayso nolosheenoo dhan baad baabisee waa run waxaasoo dhan anigaa sameeyey nolosheenniiyoo dhan anaa baabi'iyey markii aan iyada ogaaday ilmaha dhibaatada ku haysana waan iska furay axmed arrinkaas waa dhacay ninkanna wuxuu u yimid wuxuu kaa dalbanayaa inaad saamaxdo wuxuu kaloo kaa codsanayaa inaad dib isugu soo noqotaan dhammaantayn annaguna markhaati baan ka nahay ilaahayna waa markhaati wanicman billaah go-aankana adigunba iska leh kalow waa laga yaabaa noloshaadu inay isbeddesho wax badanna waad u soo samirtay adigu 7 sano dhanna waad samraysay bis haddaba intaa ku ekaato ninkii waa ku ag joogaa garabkaagaanu doonayaa inaad isku noqotaan wad ubadkiina isku soo urursataan oma waxaad rabtaa inaad sugo sidii kale ina mid kale haddana layga daba keeno maya waxaas way tegeen wax soo noqonaya maaha tu kalena dhici mayso tuyada iskaga tagtay ama isagaa furay u fasaxay naagta hawshaas way dhammaatay waa ka dadku dhan ka hor caddeynayay markan ka iman wixii hore ninka marka hore naag baa waashay wuu timid wuu iska raacay haatanse wuu soo waayay arkay isaga hadda waa nala joogaa iyadiina ka tagtay waanad maqashay hadaladiisii mana rabo yacni inaan kugu soo celceliyo laakiin adiguna go'aanka adaa iska leh marka hore waa maslaxaddaada marka labaadna waa maslaxadda ubadka marka saddexaadna waa isaga maslaxaddiisa isagaa ugu dambeynaya ka fakir kadibna jawaabta adigu isii anigu ma garan karaa wax allaala waxaan idhaahdaba haye xaajiyaddaydii may saamaxday shayddaamadiina ilaahay waana dhaafiyey laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah walaa xawla walaa quwata marka ugu horraysa ilaahay wejigiisa ayaan kugu saamaxay marka xigtana ubadkeenna dartood ayaan kugu saamaxay mar saddexaadkana georgi wejigiisa ayaan kugu saamaxay ilaahay ha ku karaameeyo waan ku saamaxay waad saamaxday dhacdo oo cafin weydo aakhiraadii kugu qaladantay haddaba waxaan leenahay daawadayaashayada inay ku tusaale qaataan oo daawadaan waxaa la jecel yahay inay wax badan kaga daydaan waayo dadku waxay u baahan yihiin dad badan oo waxa jira wax isu qaba uqdad isu qaba islaayi ama ehela dad walaala dad isqaba dad isdhalay ayaa jira marka sida runtii waxa fiican aan anigu marka halkan leenahay in ay barnaamijka aad u soo dhaweeyaan oo qof walba qofka kale ee walaalkiya ee uurka wax ugu haya ama wuxuu ka cafin karo inuu cafiyo inuu cafiyo